إذن إسبدلك بني آدم كعقلك قبل أما إسبدلك ماتيريال لك بقراية ما ماتيريال لك بقراية عربت الدار بعد 40 سنة لكن ما حوي سوكر بيه سكاي سكرابس بي وضع ديسين أنا قاعد دار طيبة تينا كده والله بدار عيرك قبل إن شاء الله وضع ديسين لأن يقول روح بدل ما لسه وحاسمها وحبة بدلها ماتيريال كود سوكر بيه يسوق هرمركم معها هرمركم بني آدم كود بدشوا سيدو يفكر أيو سيدو وحب عريو سيدو وحق قبنا أيو بني آدم كو يساقا مركا عندك على السماية يساقا وحصوصار كالسماية يساقا وحا كالسماية جيرماني دولك على السماية لكن عقل جاي هرو بدلين دولك مركي على السماية وحي كردقان محي مالك من النبي بقى وحوران شري مركي دولك على السماية جيرماني هدي جيرمانك اللي سوق قاضي لهايو وضن أفريكان الله نحدق لها بولي كو أفريكان كيد دقنا اللي قاضي لهايو جيرماني اللي جاي لها كو سينميل دونسون بس كان نولان لها يبولي كو اللي سوق قاضي جيرمان الله وضن عصب يدل عصب شوية يعني هو بني آدم كا سيدو فكر يسوع وارك يسوع وقبر يا اللي يسبدله إذا كادر كانوا ربنا ما هان لدهمي ما ها شهاده وراقات سيدته حق سرنا كرس كسوري حق حسنا يكون قرنتي in the name of law بسم القانون حتى بسم الله الرحمن الرحيم قوة الله بسم القانون يكون تيك عامكم بحين شريبه وحسن نوقو قرأ تسيد الروضة الصومالية وكغاضن حتى بسم الله الرحمن الرحيم ولا هين بسم القانون باكو قرأي in the name of law شهادة وراقة ما تنفع وحبا كورين ميش هذا هو ماستر هو فيرست ديجري بوسيتا يا لبا ماستر بوسيتا يا لبا بي اتش دي بوسيتا هذا ما تنفع هو وراقه لكن هداد ادو قف اسبدليت هيس مركاس معنا سمينيسا بي اتش دي غو معنا سمينيا marka tahay mutaallim rasmi scholar rasmi marka tahay marka aad nolosha wax ka bedelayso marka aad thaqaafadii odayada dib noogu celinaynin laakiin haddaad inta halkoo tagto safka halkii kaga beerto wadanka marka aad tiraahdo halkeeba dhadhan badan halkeeba wax laga xadaa dawladda halkeeba wax laga khiyaameyn karaa farsamadaadu ay noqoto good accountant baan ay wax isweydaarin karaa oo waraqad beena soo saari kara bahashana la bixi kara waxba tuuganimadu ma xirfadu soo baratay tuuganimada ay ma xirfadu soo baratay marka waxaan u baahanay waxa weeyaan ka maanta dunidana isticmaar jadiid ah jira isticmaarka cusub ni colonialismka cusub waa isticmaar sida quraanjada dhulka marayso buu ka soo hoos baxaya gurigaaga adigoo dhistay u badarkaysa oo iyadoo quraanjo meel daldalooliso ka soo dhex baxday jeexjeexu ka soo baxaya oo waa maxay jeexjeexu midunba ka soo dhex baxaya kule الخدمات العامة بان ku taageeraya caafimaadkan idinka caawinayna tacliintan idinka caawinayna askartan waxsiinayna shurtadan caawinayna qaanuunka iyo maxkamadahan wax tarayna xuquuqul bini'aadamkan kordhinayna dumarkan xoreynayna caruurta iyo xuquuqdoodan ilaalin waxaas ay u wadaan kaaga soo dhex baxayaan bulshada bedelayaan ay yiraahdaan dunidan dambe subversion theory bini'aadamka gudihiisa laga jabiyay laguma duula bay yiraahdeen gudihiisa laga jabiyaa waxaan rabnaa mujtamacaadkeena way sii burburayaan siyaasi ahaan bulsho ahaan dhaqaale ahaan waa sii dumayaan taxadiyaad khaarij kuwa daakhiliya ma wayna haystaan laakiin kuwa daakhiliga gudaha ka jira ba xaqiiqo ah taxadiyaad dhab ah haday qabiil tahay haday mukhaadaraad tahay maanta wadanka Soomaaliya gobolada gobol kasta ama dawlad goboleedyada ama dawladaha madax banaanida sheegtay marka la isku daro meel kasta barjadka dawladda barjadka qaadka ku cunaan ba ka badan Soomaaliland mesela barjadka dawladda 300 milyan buu ahaa meelaha sumaray Itoobiya qaadka qura ay ka iibsadaan 540 milyan bay iibsadaan qiyaas adigu umad muqaddarka ay cuntaa uu ka badan yahay maxay barjadka dhan ee dawladdu leedahay marka la isku daro ma inaga qura ma hatta caalamul islaami wala mid dunida carbeed oo dhan marka la isku daro wasaaradaha tacliinta iyo wasaaradaha maxay sixada wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda tacliinta oo dhan marka la isku daro wasaaradda sigaar cabiska ka lacag badan bal qiyaas adu caalamul islaami oo dhan marka la isku daro
sigaarka iibsadaa baa wuxuu ka badan yahay wasaaratu sixa iyo wasaaratu tacliim waxaa ku baxa waa carab oo dhan markaad isku darto bilbalaayiin baa sigaar lagu cabaa idan isbeddelkaynu rabnaa daara maaha isbeddelka aynu doonaynaa ama mutacalimka aynu rabno ama scholarka aynu doonayno inuu waddankii tago intellectualka rabnaa maaha intellectual daar noo dhisa ama dhaqaalo samee kaas maaha asalka waxaa asalkaa intellectual bini aadamka wax ka bedeli kara waxaana bini aadamka wax ka bedeli kara qof isagu bedelmay qof isagu aqoon-yahan noqday qof isagu muthaqaf noqday taxdiyaadkeena daakhiliga waa kuwa waa xadkaas qabiil waxba ay ka socon waayeen dowladnimada soomaaliya way soo yimaadaan maxay qaadaan soomaaliyay toosoo dabeetana way ooyaan shirarkooda waxaad sanaysaa war wallahi waa kan ilaahay soo hadeeyey cabaar markay ooyaan bay isdooranayaan oo qolo fanaaniini gabaydo oo heesa la tiriyo oo calan la huwado oo caynka la sameeyo ayaa dowlad la doortaa dowladda marka hore la dooranayo reer waliba wuxuu isleeyahay dee ama madaxweynahaad heli ama ra-iisul wasaarahaad heli ama kambaad heli dee qolunbaa soo baxaysa qola markay soo baxdo inta dambe waxay dhahaan waryaadhe nimankii reer hebel baa meesha qabsadee yaynagu dowladoobin haddaba caga haya afartiisa sane caguun baa la hayaa ila reer hebel baa laga ilaalinaya magaca iyo maamulka iyo maamuuske 4 sano markaynu halkii un taagannahay ayuunbaa haddana heesihii dib loo qaadaa soomaaliyay toos waa kii shirkii 20aad baynu oran ma ummad 20 goor shirtaad aragtay waan dowladu u dhalanaynin kayf yumkin idan maaha masaladu miyaynan shirayn maaha miyaynan dowlad samaynin maaha waxa masaladu waxa weeyaan cultural revolution baynu u baahanay waxaynu u baahanay dhaqan bedel waa layna dhaqan bedele ummad suldaankeedu qayelayo madaxweynaheedu qayelayo maamuuskeedu qayelayo wada muqaddara ummad qof waliba wuxuu soo gaaro uu xadayo ummad qof waliba wax kasta uu qaadanayo inteeda badani dee ma jirto waxaan tiiriyadana dowladda hal qaqayga wax lagu oranay maxaa dowladda uga qayb gal wadawada maxay ka idinku ahlu taqwaysan hadii madaxweyne laga dhigo wax isbedeli maayaan way dowladnimadu waa ummad nin maaha qof iyo laba iyo saddex maaha waa ummad fikrad rumaysatay oo wax qaadatay oo ku socota haddaan taasi jirin qof iyo laba iyo saddex iyo ka ugu daacadsan haddii la geeyo huwa intii kala caga haysa muxuu samaynayaa reer hebel buu noqonayaa sumaddaas u yeelanaya markuu meesha tagay reer hebeladii kalena waxay leeyihiin cagaa hayday kugu dowladoobine marka ayuha alxiba waxay leeyihiin waxaan u baahannahay ضعف الوعي العام baa jira aqoon-yahanku waa qofka bedela bay yidhaahdaan waa sunaacu الra'yi waa dadka bedela cuquusha ummadda oo waa maxay ummaddu cuquusheeda waa la bedelaa sida wuxuu aragtay waa laga bedela